ammaanadii loo dhiibay dastuurka Soomaalinimadii isku wadidii marka laga soo bilaabo ilaa qoysku asagu ka dhashay oo jifadii hoosaa lagu keeno madaxweynuhu wuxuu xeeriyay lama arko madaxweynuhu dastuur ma xeerin madaxweynuhu sharci ma xeerin madaxweynuhu ammaanadii ma xeerin madaxweynuhu islaamnimo ma xeerin madaxweynuhu dhaqankii Soomaaliyeed oo wanaagsanay ma xeerin madaxweynaha asoo madaxweynihii Soomaaliyeed oo saad ogtahay lagu doortay oo hadii idinka saad ogtahay loogu dabaal degay oo xabada loo riday inuu mataqaanaa qabiilkeygii ayaan hadii idinkeeda Ilaaha ka reebay doorashadii inay caawa ay garaado u tahay oo ay agtaalo ayaa madaxweynaha dhibaato ugu filan waana runtii muxuu ahay dadka muxuu ahay gedo ama Jubbaland aniga gedo waxaan mataqaanaa shaqo ka bilaabay si toos iyo si dadban muxuu ahay 81 markii qaxootiga buur dhooba iyo mataqaanaa malkaahidii Sureey la dijina ilaa yoomana hada waqtiga al-ittixaadku dagaalka wada yani waa dad wanaagsan waa dad mataqaanaa wadanka meelaha ugu dhibka badan ugu qalalan ugu abaarta badan ay jirto hadda abaaru ka jirtaa madaxweynuhu wuxuu ka doorbidaa inuu mataqaanaa dadkii kala qaybiyo qabiilkiisu kala soo dhaweysta maxay u taraysaa marka waa runtii nasiib darrada ugu dambeysoo dhacday waay arinta gedo way bal dhihi karaa marka xildhibaanadii koonfur galbeed uu ku tashanayay iyo kuwa kale la soo saaraba in garabkiisa ay ka baxeen oo markaan xaalad ciidan ay marayso madaxweynuhu calaamad waxa ugu filan doorashadii xalaya ugu filan waa aragyaa tabartiisu intay la eg tahay weliba intaas waxa keenay rag hawsha uga sii hooseeya oo asaga la xulafa oo talooyin badan oo wanaagsan ka diiday oo maalin walba laha madaxweynuhu ka joog oo meel uga haraan waayay oo alaaqir bal inay qabriga geeyaan mataqaanaa naxashka ku qaadaan ay dantu ku kaliftay ama intaan keenay moogiye madaxweynuhu muxuu ahaa ii sheeg legasigiisina waa tan ka soo sheekay meesha noo wadana inuu ka aamuso waa diidiye oo inuu mataq ka hadlo waa diidiye runtii nin campaign ku jira oo aamusana macnaheedu waa laba un waay waxa waaye wixii aan soo sameeyana ma difaaci karo meeshan idii wadana idii ma sheegi karo amaba meeshii aan idii wadaaho waa meeshan idii ka keenay oo la sii laba jibaaro waay waa dagaalkii maamul goboleedyada waa dagaalkii qabiilka waa siyaasadeyntii ciidamada waa wiilal yar yar oo garaada lagu tixo waa arrimaha dibadda la ka soo xiro Eritrea naloo ekaysiyo hadda madaxweynuhu muxuu ahay legasigaas waay legasiga dhibka keenay xalay go'aankii la qaatay baarlamaanka ee xildhibaanada ceelwaaq lagu soo doortay iyo kubi kale gadaba xalka loogu gaaro bal ka waran wadadaas la qaaday iyadana aniga muxuu ahay horaan u sheegay Twitterkaygaan ku qoray go'aanka muxuu ahay sideedaba qofka markii dhibaato wax loo keeno oo qofku yani hoggaan leeyahay ama go'aan laga rabo waxa la rabaa laba shay oo wanaagsan wanaaga weyn inuu qaato laba dhibaatada yar inuu qaato arrinta gedo inay meesha soo gaarto Soomaalidu waa wada ogtahay xan maaha madaxweynaha meesha soo gaarsiiyay markay halkaan timidna haddana go'aanada yaalay oo dhan go'aano fiican ma ahayn go'aano wanaagsan ma ahayn laakiin go'aanadii wanaagsanaa ayaa kii ugu sii dhib yaraa ayaa laga qaatay sababta waxa waaye gedo waxay ka tirsan tahay Jubbaland maamulka Jubbaland inuu sii jiro hadii la rabo oo madaxweynaha muxuu ahay hadii gada asaas xijiye muxuu ahay oo asoo madaxweynihii asaas xijiye dadku ka dhashay inay Jubbaland ka tirsanaadaan hadii la rabo si mataqaana dib u heshiisiin iyo wax kale loo xanjeeyaba waa in lagu xalliyaa barnaamijka gedo si Jubbaland ay raali ka tahay muxuu ahay dawladda Jubbaland ay lug ku leedahay sidaas ayaa muxuu ahay anigu shakhsiyan ayadoo qaraar aan u taageeray in doorashada ceelwaaq lagu qabto shirkadda Cadceed Group waxay ciidda sanadkan ku keeneen dharka wiilasha ee Mubaarak super style mawlihii la siiyo mahadalweyna digoo iska dhaaf oo gacantaada ka dhowr dharaan ka ahayn Mubaarak super style dharaan Mubaarak super style ahayn iga dhaqaaji meel layow iga taaba hadugan ha u dhawaan oo weligaaba ka dheerow dharaan ka ahayn Mubaarak super style yaa dadka ma dhoohan wax kale xay ka dhugayaan waa original dhaba dhar weeye xariira dharar wiilka xirtaa dhool wuxuu ka qoslaa dhiq inuu dhool la cadeeyo dharka ku qasbaaya waxa la soo dhigay suuqyada dhex yaalla adigoon dhab
dhihin dhago bal u fiirso dhalaal midabka Mubarak Super Style ba waligood ka dhex muuqda wala yaa inta lagu huraa dharkan waa original in lagu dhaliiliyo eedaba ka dheer dharka Mubarak Super Style ma saaba dhaliil waa boqorkii quruxda waxa dhar la keenay ciidan la soo dhuray waxa ka dhacifayo dhamaantood u wanaagsan calankiisuna dhacayno sidii dheeman ka tilmaaman waa dharka Mubarak Super Style iyo ku dhafin originalka waa isku joog ka kooban sarwaal funaanad jaakado dhowr kala cayna suun iyo koofiyad qurux badan ugu labis inamadaada sidii gorgor galleer kabtan ama pilotiska waa inta nooc uu ka kooban yahay dharka Mubarak Super Style dharka Mubarak Super Style waxaad ka heli kartaa goob kasta oo dhar lagu iibiyo ama shirkadda Cadceed Group ama la xiriir ciwaanada hortaada ka muuqda